wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay uu idin hayo calanka TV qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenana waxaa ka mid ah mucaaradka oo isaga cararay magaalada Muqdisho xilli asbuuc ka hor ay ku baaqeen shirweyne ay ku sheegeen mid qaran balse wadanka ay rabeen inay ku burburiyaan ciidamada laga keenay Eritrea oo howlgalo halis ah ka bilaabay magaalada Muqdisho xilli mucaaradka ay bilaabeen inay ka guuraan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya General Yusuf Maxamed Indhacadde oo si toos ah isugu dhiibay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya xilli uu hadda garab siinayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo ka baxay garabka nabadiidka iyo xubnaha mucaaradka dhanka kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo diiday inuu raaco diyaaradda Turkish Airlines xilli uu safray dalka aan walaalahanahay ee Turkiga haddaba maxay tahay sababtu wararkeena xiisaha leh ee caawa ayaan kugula wadaagi doonaa daawada filla Soomaaliya oo muuqaal documentary ah la wadaagtay dowladda Turkiga iyo dagaalka ka socda dalka Itoobiya oo waji kala yeeshay iyo madaxda ciidamada Tigreega oo qarka u saaran inay isu dhiibaan dowladda federaalka ah ee Itoobiya ciidamada federaalka ah ee Itoobiya ayaa wada istiraatiiji ah ka qabsaday kooxda fallaagada ah ee TPLF qodobadan iyo kuwa kale oo dhameystiran ayaan daawada ku wadaagi doonaa wararkeena caawa ee calanka TV madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa diiday inuu raaco diyaaradda Turkish Airlines xilli uu safray dalka aan walaalahanahay ee Turkiga haddaba maxay tahay sababta balse inta aanan sababta kula wadaagin madaxweyne Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo oo weeliso marwada koobaad ee qaranka Marwasiin Cabdi Macallin ayaa u ambabaxay dalka Turkiga oo ay kaga qayb galayaan meertada saddexaad ee shirweynaha iskaashiga Turkiga iyo Afrika shirweynaha madashan oo socon doona muddo u dhaxayso 17 bisha ilaa 18 ayaa madaxda ku boobay madashan ururka midowga Afrika maalgashayaasha iyo khubaradu waxay kaga aragsan doonaan mustaqbalka xiriirka labada dhinac kor u qaadista iskaashiga amniga socdaalka ganacsiga warshadaha dhisida kaabayaasha dhaqaalaha iyo yareynta saboolnimada madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa soo bandhigi doona aragti wadaag dowladda federaalka ee mustaqbalka iskaashiga labada dhinac fursadaha maalgashi ganacsi iyo diblomaasiyadeed xoojinta amniga xiriirka meerdhalka ah ee Soomaaliya iyo Turkiga sidoo kale wafdiga dowladda federaalka ah ee hogaamiyay madaxweyne Farmaajo ayaa inta ay ku sugan yihiin madasha magaalada Istanbul ee martigelinaysa shirka waxa ay kulandoocyo la qaadan doonaan madaxa ka soo qayb galaysa madasha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya waxay dhaxal u tahay buundada isku xirta xiriirka waxtarka leh ee u dhaxeeya Turkiga iyo wadamada Afrika taas oo ay tilmaam u tahay in caasimadda Muqdisho laga hirgeliyay ismaha safaaradda ugu weyn ee Turkiga uu ku leeyahay caalamka madaxweyne Farmaajo ayaa Muqdisho ka raacay diyaaradda Ethiopian Airlines oo maraysa Addis Ababa halkaas ayuuna caawa saq dhexe diyaarad kale oo Turkiga aadaysa ka sii raaci doona inkastoo diyaaradda Turkish Airlines duulimaha toos ah ay ku tagto magaalada Istanbul maalmaha qaar ayay Muqdisho ka baxdaa iyadoo la sheegay in uu haray madaxweyne Farmaajo sabab la xiriirta in diyaaraddu 45 daqiiqo ku sii hakanayso garoonka diyaaradaha Djibouti maadaama khilaaf shakhsi ah uu kala dhaxeeyo madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele iyo Rooble ayaa kulan gaar ah shalay ku yeeshay madaxtooyada Djibouti ayaana ka wada hadlay arrimaha Soomaaliya iyo xiriirka ka dhaxeeya balse madaxweyne Farmaajo iyo Geele ayaa wali isku aragti siyaasadeed ka ahayn khilaaf adag ayaana wali ka dhex jira waatii dhawaan lagu xiray garoonka diyaaradaha Djibouti oo markii dambe laga musaafiriyay dalkaas Faad Yaasiin Xaaji Daahir taliyihii nabad-sugidda hay'adda sirdoonka qaranka isqabqabsi ka dhaxeeyay agaasimaha nabad-sugidda iyo cidda noqonaysa dhanka kalena filla Soomaaliya oo muuqaal documentary ah la wadaagtay Turkiga agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Cabdirashiid Maxamed Xaashi ayaa xarunta guud ee warfaafinta madaxtooyada dalka Turkiga ee Ankara waxa uu kulan kula qaatay dhigiisa warfaafinta dalka aan walaalahanahay ee Turkiga mudane Haftin Altun labada agaasimo ayaa ka wada hadlay wada shaqeynta xoojinta xiriirka laamaha warfaafinta heer madaxtooyo ee labada dal tayeynta iyo horumarinta wacyigelinta wariyaasha ee xilliga doorashada iyagoo isla meel dhigay qorshayaal kor loogu qaadayo cilaaqaadka ku dhisan walaalnimada ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Turkiga agaasimiha Cabdirashiid Maxamed Xaashi ayaa la wadaagay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Turkiga muuqaalo documentary ah oo ka diyaariyay xafiiska warfaafinta ee filla Soomaaliya kuna turjuman af Turki oo ku saabsan 10 sano guurada
dib u curashada xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga. Muuqaalka filimkan ayaa la qorsheynayaa in lagu baahiyo warbaahinta dalka Turkiga. agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta ee madaxtooyada Soomaaliya Mudane Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo safar shaqo ku joogay dalka Turkiga ayaa magaalada Istanbul kaga qaybgalaya shirweynaha istiraatiijiyadda isagoona ku bogaadiyay Mudane Fahrettin doorka hogaamineed uu ka qaatay. dhanka kalena dagaalka ka soconaya dalka Itoobiya oo waji kala yeeshay iyo madaxda ciidamada Tigreega oo qarka u saaran inay isdiiwaan. ciidamada dowladda federaalka ah ee Itoobiya ayaa wado istiraatiiji ah ka qabsaday kooxda fallaagada ah ee TPLF. dagaalo qaraar oo labada dhinac ku dhex maray gobollo ka tirsan waqooyiga Itoobiya ayaa labaduba guulo ka sheegteen. waddo halbowle ah oo isku xirta Maqale iyo Waldiya ayaa laga qabsaday kooxda TPLF sida uu sheegay TV-ga dowladda federaalka ah ee Itoobiya. sidoo kale ciidanka dowladda ayaa qabsaday buuraha silsiladda ah ee Soble iyo magaalooyinka ku hareeraysan sida Fikosa, Boran iyo Welje. dagaalka xooggiisa ayaa ka dhacay aagga wadada xiriirisa Maqale iyo Waldiya oo markii dambe kooxda lagala wareegay. dowladda Itoobiya ayaana xoog ku saartay in muddo ahna gelisay sidii wadadaasi ku qabsan lahayd. ciidamada Tigreega ayaa aad ugu mitiday sida ay wadadan uga difaaci lahaayeen ciidamada dowladda, balse waxay halkaasi ku dhintay ciidamo aad u tiro badan. sababta ay ugu dhamaadeen difaaca wadadaas ayaa lagu sheegay in wadadaasi ay tahay wadada kaliya ay ka soo bixi kareen ciidamada Tigreega ee ku go'doonsan dhinaca gobolada Amxaarada. ciidamada Itoobiya oo guulo la taaban karo ka keena dagaalka ayaa hadda ku sii jeeda deegaanka Marsa oo ay kooxda fallaagada ah ku xoogan tahay. weli lama saadaalin karo halka uu salka dhigan doono dagaalkan xoogan ee ka socda dalka Itoobiya, balse sida hadda ka muuqata waxaa dagaalka ku gacan ka sareeya ciidanka dowladda oo goobo hor leh sii qabsanaya. balse ku darso deegaanada hadda ay dowladdu qabanayso waa kuwa beer ka hor ku jira gacanta dowladda oo si xoog ah TPLF kula wareegtay. dagaalka reer galbeedku ay ku kala taageerayaan labada garab ayaa u muuqda kuwa aan weli ka niyijabin horinta dagaalka sanadka dhaafay ee ka socda gudaha dalka Itoobiya. ra'iisul wasaare Itoobiya ayaa maalmo ka hor dib ugu laabtay furimaha hore ee dagaalka isagoo wacad ku maray inuu markaan soo afjari doono kooxda TPLF. Mareykanka iyo xulafooyinka kale ee taageeraya kooxda fallaagada ah ee TPLF ayaa iyaguna hub iyo media intaba ku taageerayo. muuqaalada iyo sawirada qaar la baahiyay ayaa waxaa ka muuqda wariyaal cadaan ah oo u shaqeeya CNN iyo Reuters iyo warbaahin kale oo waaweyn oo ka tirsan gudaha dalka Mareykanka oo la safan ama taageero xoog leh u muujinaya kooxda fallaagada ah ee TPLF. Ruushka, Chinaha iyo dalal kale oo ka mid ah kuwa Carabeed ayaa iyagana si toos ah u taageeraya dowladda Itoobiya. wararka qaar ayaa ku daraya in Turkiga xooggiisa uu soo gala dagaalka iyadoo sida la sheegay in la isticmaalayo diyaaradaha Bayraktar oo laga leeyahay dalka Turkiga.